بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين ولا لي السود وهذا وأنا السود وين هيا ما شاء الله تبارك الله. إلهي نوحن كبرينا ودنك الصومالي إلهي نو حفظيه ونو حافظه عدو الصومالي نو كقبته وحجرا إن قللا سدي جرتا إلا هديرتان نينكي اللي دهي مرسل وقولها شعب كهيستي أيالا دقاتشين ويسنية فرماتشو قربكو هيا إن لعجها طبعاً كون كلي لعجها المايو لعجها بدن وحنا كجرا investigation كجرا ورق بدن يجريو كوكاتين marka waa ogyahay mursal asaga naftiisa inaan laga hareynin insha Allah mursal wuxuu qalalaasa ku wadaa shacabka Soomaaliyeed asagoo baarlamaanka fadhiya marka golihii baarlamaanka sare wax kasta waa soo ogolaadeen marka lacagta 10 kun oo la geeyay kaliya ma ahan ninkii la dhahayay Cabdi Xaashi waa yeelay marka waxaan rabaa walaalayaal inaad dhageysataan oo dhigta aad ku nugristaan wuxuu ka hadlayo gudoomiye ku xigeenkii aqalka sare oo labaad in ma aragtay aad wax ka maqashaan oo wax ka dhageysataan dhibaatadeeda maanta waxa dhacay waa wax nagu cusub aqalka sare xildhibaano golihii jooga oo buuxiyay shuruucdii gudinimada sharcina u haysta xeer hoosaadka gudoomiyaal gudoomiye ku xigeen xog haye buuxiyay shuruudii oo golihii jooga lana wargeliyay in Zoom lagu raadiyay UK Kenya Ethiopia Garowe Addis Ababa arrintaasi waxaan leeyahay wixii shirkaasi ka soo baxa goluhu waa in uu si gaar ah uga hadlaa arrinta ugu kaliftay inaan maanta sidaas u hadlo oo laga yaabo inay xanuujinayso dad badan oo Soomaaliyeed صح 6 bisha ilaa maanta oo 10 ah صح waan isku daynay aniga iyo senator kale صح inaanu qancino gudoomiyaha صح ugu dambeyntii gudoomiyaha waxaan leeyahay wixii shacabka Soomaaliyeed aad ka hor sheegtay khudbadaadii macaaneed ee ahayd shacabka ha loo turo ka dhabe taasoo ah waxa ummadda naga filayso isku duubni labada gole wada shaqayn hay'adaha kale ee dawladda khudbadaadii bay ku qoran tahay صح khudbadaadii bay ku qoran tahay صح sidaas awgeed mudane gudoomiye waxaan ka dalbayaa oo ummadda Soomaaliyeed ay marqaato uga dhigaya صح inaad ka tanaasusho mowqifkan adag ee aad qaadatay guddigan maanta aad Zoomka isugu keentana waxaan si cad u leeyahay waa qeyr sharci محمد متوكل واكسا waxaan dii sheegayaa in maaragtay oo lacag qaatay oo caada qaata uu yahay mursal oo maaragtay ismaqiiqinaya mursal oo kursiga waad ka dhacaysaa qayl wanda baa tahay shacabka Soomaaliyeed baad qiyaantay shacabka Soomaaliyeed baa lacag dhaafsatay kursiga waxaan kuu fadhiisinay inaad dadka u garsoorto oo codka bilaadanka la maqlo oo codka shacabka nimanka ku hadlaya oo xildhibaanada ah wasiirada ah in la dhageysto waxa ay ka qabaan adduunyada dhan mucaarad iyo muxaafad waa ka qoran yihiin laakiin adoo og wadankeenu halista uu ku jiro iyo dhibaatada wadanka Soomaaliya taala oo ogtahay farmaajo inuu wadankii faraha ka bixiyay oo Kenya warqado u saxeexay oo Ethiopia warqado u saxeexay oo Qatar warqado u saxeexay oo gaala aan la aqoonin oo Ingiriis ka mid yahay ay ka mid yihiin wadamo badan oo Mareykanka uu ku jiro tuugada fadhida wadanka Soomaaliyeed oo dhalinyarada Soomaaliyeed xoolahooda cunaysa oo dhacaysa oo rabta inay wadanka kheyraadkiisa fara ku qaado oo dagaal dabada laga riixay Ethiopia oo qadaru riixayso iyo Kenya oo la leeyahay la dagaalan Soomaaliya ayaad raalli waxaad uga noqotay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sameeyay adoo la socda inaad moogtahay ma u malaynayo aniga I believe inaad la socotid wax laale iyo wuxuu sameeyay ninka la leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka walaal waxaan ku leeyahay qiyaamada horta hore Ilaahay Azza wa Jalla ayay Soomaali talada saartay kursiga dadka aad ku matalaysay iyo shacabka Soomaaliyeed oo ankii baarlamaanka uga ahayd gudoomiye ayaad ku qiyaantay hadaladii ninka la leeyahay Jawair waa soo wada baxeen
wuxuu sheegayana waa soo wada baxeen qaa'idul waddan inaad tahay oo tuug aad tahay oo calanka soomaaliya ciidda soomaaliya aad ku tumatay waanan ognahay habraha kuu alalaasaaya oo gacmaha kuu tusaaya waa habraan soomaalida kala jeclayn waa dad dhibaatada soomaaliya haysata ayna gubaynin waa dad ma aragtay dhuuntooda iyo calooshooda iyo afkooda u shaqeeya waxaan ku leeyahay waxyaalahan oo dhan waa la iskaga imaanaya soomaaliya waxyaalo badan baa maqan waxyaalo badan baa adduun weynuhu nagu kaalmeeyey wixii oo dhan waa la wada dhufsaday marka anigu waxaan ku leeyahay dilaaga adiga iyo Fahad Yaasiin iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaadan dowlad hayn karin waan ogahay halkan waxaan kala hadlahayaa xasan qayrow maantay maalin ay ka xun tahay aad ka shalaayaysaa xasan cali qayre waxaan ku leeyahay intay goorgoor tahay candhuuftaada dib u laq ka bax wax kastoo lagugu haystana ka garbax ha noqonin macangeg yaa lagu adeegsanin waxaa la yidhi waa la sixray waryaa qur-aan waa taqaanaa waryaa dad culumaha ku dhalay qur-aankana waa taqaanaa qur-aan akhriso ama qur-aan isi saaran ku leeyahay waa la isixray nina kugu fiirsan mahayo sixir mursada kugu fiirsan mahayo qur-aan baa jira qur-aanka ilaahayna wax kasta waa buriyaa may fahantay markii qof aad gacantaada